magaalada Dubai ee wadanka Sultanka Imaaraadka Carabta waxaa ku geeriyooday wasiirkii dastuurka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya marxuum Cabdullaahi Xoos Jibriil oo waayadan xanuunsanaa waxaana ka tacsiyay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyay geeridii ku timid wasiirka dastuurka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya marxuum Cabdiraxmaan Xoos Jibriil oo maanta ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada Dubai ee dalka Sultanka Imaaraadka Carabta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa sidoo kale ka tacsiyay geerida ku timid Allah u naxariistay wasiirka dastuurka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale gudoomiyaha labaad ee golaha shacabka ayaa ka tacsiyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir wasiirka arrimaha gudaha xisbiyada guud ee qaranka iyo hanti dhowraha qaranka ayaa dhamaantoodba tacsi tiiraanyo la u diray geeridii ku timid wasiirka dastuurka xukuumadda Soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka Soomaaliya marxuum Cabdiraxmaan Xoos Jibriil ayaa waxaa si kadiisa u helay xanuun degdeg ah xilli uu ku sugnaa magaalada Dubai ee dalka Sultanka Imaaraadka Carabta isagoo muddo yar kadibna ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada Dubai Mahad Xasan Cabdi Tawakkal telefishinka Badda Cas Muqdisho.